Assalaamu calaykum walaalayaal waa inaan ku dadaalnaa akhlaaqda wanaagsan sababtoo ah muhiimadda ay leedahay akhlaaqda wanaagsan iyo waxa lagu helo waxaa noo sheegay nabigeena Muxammad sallallahu calayhi wasallam wuxuuna yidhi maa min shayin yuudacu fil miisaani athqal min xusni lkhuluq shay ma jiro la saaro miisaanka aakhiro ee ka culays badan akhlaaqda wanaagsan walaalkana daawanayo ogow akhlaaqdaada waxay ka turjumaysaa qofka aad tahay mar kale nabigeena Muxammad sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay darajada lagu gaaro akhlaaqda wanaagsan wuxuuna yidhi ina almu'mina layudriku bixusni khuluqihi darajatu saa'imi alqaa'im qofka mu'minka ah wuxuu ku gaaraa akhlaaq wanaagiisa darajada qofka sooman ee haddana taagan waa qof maanta dhan soonnay caawana salaad u taagan waynu dareemi karnaa qofkaasi wanaagga uu ku sugan yahay marka walaalayaal aynu ku dadaalno akhlaaqda wanaagsan iyada ayaa adduun iyo aakhiro wanaag lagu gaaraa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh